waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka SBTV waxaana kamid ah qodobada wararka aan idiin hayno. Xogayaha guud ee qaramada midoobay oo si adag uga hadlay xaaladda Gedo. Turkiga oo 31 dal u ogolaatay inay caafimaad u tagi karaan dalkiisa, kuna xirtay shuruud adag. Safiirka China ee dalka Israel oo meedkiisa laga helay gurigiisa. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama oo mar labaad weeraray madaxweyne Trump. Daawadayaal intaasi waxay ahaayeen warkii kooban haatan ku soo dhawaada warkan oo fidsan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ka hadlay xaaladda gobolka Gedo ayaa sheegay inuu si xoogan u cambaareynayo dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolkaasi ee u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo kuwa Jubbaland. Antonio ayaa sheegay in ciidanka ay dawladda Soomaaliya bishii Febraayo ay geysay gobolka Gedo ay sababtay isku dhacyo iyo xiisado dagaal oo hor leh. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in dagaaladii u dambeeyay ee dhex maray labada ciidan ay waxyeelo ka soo gaareen dad badan oo shacab ah, kuwa kalena ay ku barakaceen. Waxaan aad uga walaacsanahay isku dhacyada hubeysan ee ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda Soomaaliya ee ka dhacay Gedo, kuwaasi oo sababay khasaaraha iyo barakaca dad shacab ah, ayuu yiri xogayaha guud ee qaramada midoobay. Waxa kale oo ugu baaqay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa Jubbaland inay joojiyaan xiisadaha ka jira koonfurta Soomaaliya si looga hortago rabshado kale oo dhaca. Antonio ayaa sidoo kale la filayaa in mowqifkiisa ku aadan xaaladda cakiran ee gobolka Gedo uu ku cadeeyo khudbad uu ka jeedin doono shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Ugu dambeyn, xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay heshiisyadii dhawaan laga gaaray khilaafyadii ka dhashay doorashooyinkii ka kala dhacay magaalooyinka Kismaayo iyo Dhuusamareeb ee maamulada Jubbaland iyo Galmudug. War hadda soo dhacay ayaa sheegaya in safiirka Shiinaha uu fadhiyay dalka Israel isagoo meyd ah laga helay gurigiisa magaalada Tel Aviv. Warbaahinta Israel ayaa sheegtay in safiirka Shiinaha Du oo 58 sano jir ahaa meydkiisa saaka oo axad ah laga helay gurigiisa iyadoo aan la shaacin sababta dilkiisa keentay. Wasaaradda arrimaha dibadda Israel ayaa xaqiijisay geerida safiirka Shiinaha ee dalkeeda joogay iyadoo aan faahfaahin kala bixin, balse tacsi u diray dawladda China. Safiirka Du oo xilka loo magacaabay Febraayo sanadkan waxa uu hore u soo noqday safiirka China ee dalka Ukraine. Turkiga ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa uu u furayo bukaanada doonaya inay arrimo caafimaad u tagaan dalkeeda si loo daweeyo kuwaas oo ka soo jeeda 31 dal. Qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Turkiga ayaa lagu sheegay in laga bilaabo 20 May 2020 ay Turkiga tagi karaan bukaanada doonaya in laga daweeyo cudurrada kala duwan ay adag tahay in lala tacaalo iyo bukaanada u baahan qaliinka. Waxaana dadka loo ogolaaday inay ka imaanayaan 31 dal. Dadkan ayaa la marin doonaa shuruudo adag iyadoo si toos ah loo geyn doono isbitaalada. Dadkan ayaa la marin doonaa shuruudo adag iyadoo si toos ah loo geyn doono isbitaalada loogu talagalay. Waxaana kaliya dadkaasi tagi kara bukaanada aan qabin cudurka COVID-19 ee laga baaray, waxaana garoomada dalkaasi loo ogolaan doonaa dadka aan qabin cudurka coronavirus. Hawshan waxaa Turkiga u qaabilsan hay'adda UNICEF iyadoo markii hore ay tahay in qofka bukaanka ah isdiiwaan geliyo kadibna sugo in la ogolaado waxa uuna iska soo baaraya cudurka COVID-19 si loo qaabilo. Arrintan ayaa ka dambaysa markii Turkigu bilaabay inuu fududeeyo xayiraadda saaran dalkaasi ee ka dhalatay cudurka COVID-19, waxa uuna dalkan ka mid yahay dalalka ugu horeeya dhinaca caafimaadka ee caalamka. Ugu dambeyn, madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa weerar afka ah ku qaaday maamulka madaxweyne Trump isagoona ku eedeeyay inaysan si wanaagsan ula tacaalin xanuunka safmarka ee coronavirus. Waxa uu sheegay in saraakiil badan ay u muuqdeen inaysan ba mas'uuliyad saarnayn. Mr. Obama oo khudbad ka jeedinayay xafladda qalinjebin ah ayaa sheegay in xaaladan ay qeexayso waxyaabo badan oo daahsoona. Waxa uuna carabka ku adkeeyay in dadka ka mas'uulka ah dalka
ay ogaayeen wax walba oo ay sameynayeen. Waa markii labaad ee uu Mr. Obama weerar afka ah ku qaaday maamulka madaxweyne Trump muddo 7 gudihiis ah. Tirakoobkii ugu dambeeyay ee jaamacadda Hopkins ayaa muujinaya in ka badan 1,200,000 oo qof ay fayraska corona dalkaasi Mareykanka ugu taasi oo tirada guud ka dhigaysa ku dhawaad 89,000. Mr. Obama ayaa sidoo kale ku fogaaday dhibaatada uu xanuunka safmarka ku yeeshay bulshooyinka madowga ah ee ku sugan Mareykanka. Dadka Ameerikaanka madowga ah ayaa tirada aad ugu badan dadka ku dhimanaya fayraska corona marka loo barbar dhigo qowmiyadaha kale ee dalkaasi Mareykanka. Madaxweynihii hore ayaa sidoo kale inta uu khudbeynayay tusaale u soo qaaday dilkii Ahmed Arbery oo ahaa nin madow ah oo ay toogteen 2 nin oo cadaan ah. Haddii aad doonayso in dunidan ay sidan iska bedesho, idinka ayay idinku xiran tahay, waxa uu sidaasi ku yiri ardaydii qalinjibinaysay. daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa akhbaaradka caalamka. Tan iyo kulan dambe sidaas nabadgelyo. Waxaan warka idin akhrinaysay anigoo ah Yaasmiin Maxamed Muuse.